السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق هذا والله ليال ماشي أي دولة سوى كمال يرى أنا كمال يرى أصحابي وحير كهر وحن سوق جاري خبر أو كحد لايو إن فنانك شرمي بوي وشيل قلي شيل كاسخو قلي دولات كمجال جروبي مركا وحا لسوش شيء إنه أسيجا إيو مصلح مذاية iyo gabar isla saarnaayeen iyo saddex qof oo kale warka marka wuxuu soo sheegayo asiga iyo maslax mideeya dhaawac fudud baa soo gaaray gabartana way ku dhimatay dadka kalena lama sheegin laakiin waxa la sheegay inay la saarnaayeen saddex gabdhood iyo gabar iyo fanaan sharboy iyo fanaan maslax mideeya halaas inay la saarnaayeen marka sidoo warka sheegayo asiga suurdan uu soo dhigay nala daawado suurdaas marka asxaabay waxaa la soo sheegayaa inuu asiga iyo maslax mideeye dhaawac fudud ka soo gaaray shirkaas gabadhaasna ku dhimatay saddexda kale weli haybtooda lama hayo asiga soo hadlay bartiisa Facebook uu soo dhigay suurad asiga iyo maslax mideeye baawrka saaran yihiin oo ku soo qoray qoraal wuxuu ku yiri aniga shir baan galnay aniga walaalkii maslax mideeye shirkaasna dhaawac fudud baa naga soo gaaray marka Soomaaliyay noo soo duceeya laakiin faahfaahin kama bixinin faahfaahintaas oo ah inay gabar la socotay iyo inay dad kale la socotay kama warbixin marka warkana soo gaaray waxay tahay baawurka yaa waday baawurka waxa waday fanaanka Sharmi Boy waday baawurka marka sida wada ognahay baryahan baraha bulshada waxaa ka soo gaarayay buuq fara badan marka qofka duu buuq hayana waxa waaye asidan nooc kala noqona asidan murugaysanana fikir kale oo ka fikiraya malahan fikirkaas oo fikira hadana qofka markuu oo hadana murug asiga qosayso markuu haysato waa ka sii badan tahay marka baryahan buuqaas haystay qof markuu buuq hayana ma looga baahnaba in baawur loo dhiibo iyo meel loo diro iyo ma loo baahnaba ilaa waxa rabaa qofkan buuqa haysto hadana wuu yar yahay qof weyn oo fikiri kara ma ahan qofkan waa qof yar dhalinyaro ah oo hadda soo caan baxayo oo dadka ay jecel yihiin Soomaalida ay jecel yihiin marka waxa la rabaa in laga celiyo ama dadka la saaran ay dhahan tartiib baawrkan u wad ama tartiib ama dhinacan soo fadhiis qof kale ama darawa loo yeeray marka wayba noqotay ba saawatay marka in la waaniyeed marka qofka duu buuq ku jiro oo aan baawur wado ama jid u socdo kaligiis la hadlay sidaan wada ognahay marka asxaabay fanaanka Sharmi Boy usoo duceeya wuxuu sheegay inuu dhaawac basiid soo gaaray asiga iyo saaxiibkiisa maslax mideeye marka insha Allah wixiiba oo akhbaar kale ah oo soo gaarto waa isla wada soconeynaa waa isla wada ogaanayna saad arkaysiinba insha Allah waa in ka soo tabineynaa asigana waa la xiriirnaa insha Allah waan ogaanayna wixii ka soo dhaco marka waxaan insha Allah soo xaqiijin doonaa dadka la socdeen aan soo xaqiijin doonaa insha Allah iyo in dad dhinta jiro iyo dad dhaawac kala jiro marka aan soo duceeno walaalaheena fanaankeena Sharmi Boy fanaankeena maslax mideeye anaga fanaaniin qabiil ma ahan fanaan waa fanaan noo yahay anagana waa taageernaa hil iyo hooba la daba taaganahay fanaankii eebo qabiil ma aha fanaaninta waa inaan taageernaa wiilasha yaryar soo baxayo waa in kor loo qaadaa si fiican loo tira akhyaaray hala taageero fanaaniinta marka waxaan ka codsanaynaa fanaaniinta Sharmi Boy iyo fanaanka maslax mideeye in loo soo duceeyo insha Allah ilaahi caafiyo caafimaad bixiyo ku soo celiyo magaalada Muqdisho insha Allah yalla